qaybtani waxaan ku baranaynaa insha allah haddii marka hore aan akhrino to read English words we need vowel. Remember, we can't make a sound without a vowel. maxaan ka wadaa ingiriishka markaan akrinayno waxaa loo baahan yahay ma codayn kartid haddaadan haysan vowel. waa in vowel ku jira si loo akhriyo. haddaana vowel ku jirin lama akhrin karo walaalnimo kaste. waxaan ku dhahay ingiriiska lama akhrin karo ama ma kicin kartid ma fahantay erayada haddaanu shaqal ku jirin. markasta walaalay shaqalka ayaa loo baahan si loo akhriyo ingiriiska. mii fahantay walaalay insha Allah saasaan ka wadaa. marka halkan waa maxay the c waxaan ka soo qaatay inuu yahay consonant which Soomaali uu yahay shibane. halkan vowel markasta and so this waa maxay waa shaqal yaa walaalay. marka halkan waxaa haystaa dad muxuu ka kooban yahay shibane shaqal shibane. so af Soomaali waa saa mogtahay. Englishna waa maxay consonant vowel consonant dadna waa maxay waa aabaha. marka maxaad haystaa waxaa haystaa a taasoo ah xarfihii vowelka ingiriiska a e I o u. our first xarafka ugu horeeya waa maxay xarafka ugu horeeya waa maxay waa a ya a markasta walaalahay. marka halkan waa maxay waa dad. waa maxay waa halkan waa c v c muxuu ka kooban yahay consonant vowel and consonant yaa walaalahay insha. kanna waa maxay waa sidoo kale card ujeedaa a baa ku jirta sidaa aawadeed baa loo dhawaaqo u suubinaya card markasta walaalahay. marka kanna waa the same thing waa maxay waa c v c markasta walaalahay consonant vowel and consonant vowel consonant yaa walaalahay. marka waa maxay tan labaad e baa soo xigtay idin waa tan maxaan haysanaa egg and end markasta eggna waa ukunta endna waa dhammaadka wax markay dhammaada end wax markuu dhammaado waa end markasta walaalahay. marka halkan maxaad haystaa halkan waxaad haysataa shaqal shibane. so halkan maxaa haystaa vowel consonant and consonant haystaa. halkana markaas maxaad haystaa waxaa haystaa shaqal shibane. so waa maxay waxa way vowel consonant and consonant. so waa maxay waa shaqal shibane. so a e now aan aragno I ya waxaa haystaa hit and waxaa haystaa bite. hitna waa maxay waa ku dhifo waa la markaa wax ku garaacid maarta waa ku dhifasho wax markaa qof ku dhifayso hit waxbaad ku dhifatay markasta hit marka hit waa kan ayda soo ma jeedaan haade. marka h waa maxay h waa consonant aydan waa maxay waa vowel t-dan waa maxay waa consonant hit waa c v c again. intana aan arag ereyga bite waa maxay oo qaniinida qof markaa qaniinto bite ama kaneeco ku qaniinto ama wax ku qaniino waa bite qaniinida la yiraahdo walaalahay insha Allah. marka halkan maxaad haystaa halkan waxaa haystaa afar xarfood baad aragtaa soo ma maxay kala yihiin tan waa b I t e. so waa maxay waa shibane shaqal shibane and shaqal. so halkan waa maxay af Soomaali muxuu noqonayaa shibane shaqal shibane and shaqal. marka walaalahay maadaama aad fahanteen inaan kusoo celino ma aha marka aan ka gudubno insha Allah. halkan waxaa haystaa book before aan ka gudbo walaalahay halkan marka ingiriiska la akhrinayo waxaad arkaysaa walaalahay halkan marka ingiriiska la akhrinayo waxaad arkaysaa shaqal inta ku jiro iyo shaqal inta ku jiro. markaad sidan oo kale aad aragtid walaalahay markaad sidaan aragtid uu yahay shibane shaqal shibane aan shaqal. marka shaqalka ugu dambeeyo waa silent lama akhriyo silent weeyaan walaalayaa insha Allah walaalahay. marka halkan haddaan u gudun waxaa haystaa book baad haystaa bookna waa sidoo kale markasta walaalahay. marka waxa weeyaan mid baa la akhrinayaa tan kale lama akhrinayo book mujeda this is teaching you the sharciyada sida loo akhriyo walaalayaa. marka halkan maxaad haystaa si aan ku soo baray waad fahmaysaa kan wuxuu yahay ma dhihi kartaa adiga what is this good job. so this book
so book waa maxay waa b o o k but marka la akhrinayo maxaa loo akhrinayaa b o k book kan waa maxay waa silent waxa weeye markay saan u kala yihiin inta badan ujeedaa ya oo akhriskana uu hal cod yahay like book waa wan cod ma kala jabayo marka waa maxay kan waa silent kus gadaal ayaanu ka baran doonaa insha allah walaalahay halkan xustaa robe waa ma xariga ayaa la dhahaa xariga ayaa la dhahaa soo sidoo kale tan lama akhrinayo intan baa la akhriyaa robe r o p da akhrinaysa tani waa silent walaal aan ka gudubno insha allah halkan cut kadna waa goysmada ama jaarid wax markaad jaraysid kasta gooy had warqadoo kale markaad kala goys waa goysmo kasta walaalay jaarid ama goysmo marka waa sidaas oo kale marka halkan maxaad ku aragtaa in uu shaqal ku jiro halkan maxaad ku aragtay waa cute waa caruurta marka caruurta yamkeena she's cute macna qurux weeyaan cute caruurta ayaan dhana dadka waaweyn she's cute bara laakiin caruurta yar we say cute qurux weeyaan kasta marka halkan waa sidii oo kale kan lama akhrinayo maxaa la akhrinayaa c u t ida waa maxay waa silent marka walaalahay haddaan intugu noqono hadda inta qaybtan maxaad soo baratay waxaad soo baratay english inuu leeyahay 5 vowel iyo sometimes wide ama kasta walaalahay marka halkan waxaanu ku baranayna a e i o u so that si loo cudeeyo maxaan ku waxaa loo baahanya in shaqal ku jiro halkan shaqal baad haystaa halkan shaqal baad haystaa halkan shaqal baad haystaa halkan shaqal baad haystaa halkan shaqal all of the ay kasii shaqala ku jiro waa muhiim inuu shaqal ku jiro markasta walaalahay shibana keligiis lama akhrin karo walaalaya insha allah walaalahay hadda insha allah casharka dambe soo socdo aan aragno haddii la yiraahdo marka walaalahay waxaan idin dhahay ingiriiska lama akhrin karo haddii kulligiis uu shibana yahay ama constant oo kaliya yahay aan shaqal ku jirin markasta walaalahay marka halkaan arag so wayda ya marna waxay noqotaa shaqal marna waxay noqotaa shibane markaste shibane noqotaa markay qaybtani markay wayda soo hormarto oo ereyga ee u soo horeyso waa maxay waa shibana weeyaan markasta walaalahay laakiin markay gudaha ku jirto waxaynu isticmaalnaa ama ugu dambeyso waxaanu isticmaalnaa shaqal ahaan baynu isticmaalnaa sababtu maxay tahay haddii kale waxa weeyaan haddii oo kaliya laysu keeno shibanayaal laysu keeno lama codayn karo sidaa aawadeed tan oo kale haddaa fiiriso waxaad arkaysaa jim waxaad maqlaysaa jim baad maqlaysaa so waydan maxaa hadda loo akhrinayaa inay ay too kale jim baad maqlaysaa markasta walaalay ya kan aan aragno kan mujeeda aan aragno young maxaad dareemaysaa ya marka aan akhrinayo waa maxay waa shibane young waa consonant youngna waa wax yar young wuxuu markuu yar yahay ama cusub yahay young you adiga ya baad maqlaysaa mujeeda halkan yo ya-daani gudahay ku jirta why because marka la akhrinayo codaynayo waa halkaas buu kala jabayaa yo so this waa maxay waa 2 syllable 2 syllable waa yo waxaan wax soo daba noqdaa lahaa yo wax soo noqdaa iyo geeda toy waxa jiro oo xarig ku xiran markaad dhulka sa ugu macnaa aad tuurto uu soo laabanay iskool yo waa kaasaa lagu magacaaba waxaana dadka markay hadlaan yo waxay ku wax soo laalaabanay markasta yo diet aad maqlaysaa kale so waxa soo laalaabanay ya walaalay and this waa maadaama uu 2 syllable waxaan ka wadaa meesha marka la akhrinayo lagu kala jibinayo yo hadalkayga maxaa halkan ku haraya yo markasta walaalay insha allah so this waa maxay waa 2 ya walaalay marka waa maxay this waa consonant kuwan all of them waa maxay waa shaqal kuwan cagaarkaan ka dhigay mugtaa greenka halkan cycle waa wareega markasta oo cycle waa maxay wax soo noqdo markasta cycle wareega ama wax soo noqdo markasta pretty waa noqoruxda marka cycle maxaad maqlaysaa cycle waxaad maqlaysaa i dayada maxay u dhigantaa i halkan pretty ya-da maxaad maqlaysaa inay inaan akhriyo pretty mjeeda walaalay so this waxaad maqlaysaa cycle waxaad maqlaysaa marka walaalay saas u fiirso markii gudaha ku jirto mujeeda dhagayso codka markaad maqlaysa maxaa loo akhrinayaa ma shaqal baa loo akhrinayaa mise waxaa loo akhrinayaa marka walaalay saa u ogaada insha allah walaalay I hope ina casharka fahanteen insha allah walaalay casharka soo socdo aan arag walaalay khayr baan rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu